بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرنامج كنجي بره تي في أو آلا بكلا سعتين بره تي في برنامج كان أنت بدن وحنا نوجه هذا on كل فقرنا علمي جبارها iyo qaabka looga faa'iideysan karo iyo sida uu shaqeeyo ayaan aalaab waxaan ku saarnaa xooga waxaan barnaamijkan ku wareysanaa oo wareysiyo uga qaadnaa aqoon-yahanada cilmiga beeraha ee wadanka joogay ama dalka wax ku bartay ama dibadda ka yimidba marka maanta waxaan ku wareysan doonaa Yaxye Maxamed Yuusuf oo ah dhalinyarada ka baxday jaamacadaha gudaha Soomaaliya haddana ku shaqeeya cilmiga beeraha oo engineer ka mid kamid ah beeraha ku yaala beeraha casriga ah ku yaala Afgooye soo dhow Yaxye Maxamed Yuusuf saaxiibkii Cabdalla waa mahadsan tahay waxaan ma jeclanahay jaaniska ay sidinaan ka soo muuqdo TV-ga beeraha oo aan la wadaag bulshada Soomaaliyeed aqoonta iyo cilmiga beeraha inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay garaysiyo وما سنته مسرحية وحن جعلناها إن dadka la wadaagtay taariikh nololeedkaaga ama jiritaankaaga inta soo socotay inaad bal la wadaagto background-kaaga marka hore magacayga waa Yaxye Maxamed Yuusuf aniga waxaan ku dhashay degmada Beledweyne gobolka Hiiraan waxbarashadeedii asaasiga waxaan ku soo qaatay magaalada Beledweyne iskuulka hoose dhexe sare ee Beledweyne ka qalin jabiyay kadib waxaan u soo wareegay magaalada Muqdisho waxaan galay jaamacadda Samsam oo aan ka bartay kulliyadda beeraha iyo deegaanka waxaan ka qalin jabiyay waxaan difacday afraad jaamacadda ka baxda haddana waxaan ku shaqeeyaa cilmiga beeraha sida aad sheegtay waxaan ahay maareeye beeraha casriga ah ee kamid ah beeraha dalka jira aad baad u mahadsantahay sida aad noogu soo koobtay waxaan inta badan wareysiga nagu u daaranaa doonaa qaabka sumaha ay u shaqeeyaan iyo sida loo isticmaalka ay dadka beeralayda isticmaalaan ma sax ba ma soo qalad caqabadaha ay kala kulmaan isticmaalkooda iyo dhibaatooyinka uga yimaado marka waxaan aan rabnaa inaad wax yar oo sharaxaad naga siiso noocyada sumaha la keeno wadanka horta Cabdalla sumaha wadanka la keeno waxay isugu jiraan horta inta badan sumo oo kala duwan oo ah qaybaha kala duwan ee dilayaasha cudurrada sida fungicides iyo insecticides cayayaan dilayaal fungadilayaal bacteria dilayaal daawooyinka la keeno waxay ka jawaabayaan inta badan cudurrada ka jira beeraha dalka haddii noqon lahayd cudurro ah kuwa wadanka oo base ah oo wadanka waqti hore ka jiray iyo kuwa gadaal ka imaada intaba kuwa daawo ay isku jiraan daawooyinka wadanka la keeno sidoo kale wadanka daawooyinka la keeno way farabadan yihiin nasiib darro annaga wadankeenu ma lahan qaybta dhowrka daawooyinka wadanka soo galaayo hadii ahaan lahayd in daawadii ku habooneed wadanka la keeno ma tahay daawadan daawo ku haboon beeraha dalka ma tahay mid wax u taraysa ama wax ka taraysa cudurrada ka jira dalka waxaasoo dhan ayadoo ay jiraan haddana ganacsiga dalka ka jira way xoog saar inay keenaan daawo beerihii loo isticmaalo haba yaraatee ama ha badnaatee daawo uun ku filan ama soo dhaweynaysa baahidii dalka ka jirtay way ku daa inay keenaan sumahaas la keeno waxaad noo sheegtay in suma kala duwan la keeno insecticide fungicide iyo acaricide marka sumahaas tayadooda ka war halka ka tagantay cilada maanta haysta beeraleydeen oo marka la dhaho sumaha dalka ka jira waa tayada daawada runtii tayada daawada wadanka la keeno waxa u maleysa inay 100% ay ka hooseyso ama aan u dhaweyn halka laga rabay markaan ku bees gareyno wixii aan soo baranay oo jaamacadaha ku soo dhiganay oo aan daraasayno oo aan baarnay daawooyinka wadanka la keeno tayadooda iyo halka laga rabay farqi weyn baa u dhaxeeya waxaana sabab u ah wadanka dadka daawooyinka keeno ganacsato inta badan ayadoo wixii adduunka jira ganacsiga haddana in ganacsatadii daawooyinka ay keenayaan la daba galo ma daawooyin tayadooda lagu tala galay in la isticmaalo oo cudurkii
ama cudurkii wixii keenay ay ka hortagaan ma aha daawo noocaas. Okay. qiimaha daawada lagu iibiyo ama ay ganacsatada ku keentaa ma yahay qiimo dadka oo u baahan ama beeralayda yaryar ee baahida aadka u badan u qaba inay wax soo saarkooda ay ku daryeelaan ma yahay qiimo ay ku iibsan karaan qiimaha lagu keenaa daawada? horta inta badan waxa la yiraahdaa waxa lagu beesgaraa mar walba daawada la keeno wadanka dadka beeralayda ah tabartooda. markaas waxa ula jeedaa ka soo qabo dadka beeralayda dalkeena ka jira boqolkiiba 99 waa dad low income families ah oo dad danyar u badan yihiin maadaama anaga wadankeena dhan walba ka burburay dadkaas iyaga ah daawooyinka loo keeno waa daawo markoo darto ay gadan karaan xagga taanma xumaana daawadaasi laakiin tayada laga rabay inay daawo wadanka wax u tarayso oo beeri wax ka tarayso la gaarsiiyo ma gaarsiisano oo waxa lagu beesgareeyay lacagtii ayaga ay heli kareen waxa laga yaabaa caagad daawada ah oo beeliga soo inay joogto lacag $5 kala ama $4 kala ama $6 kala mid ugu qaalisan marka loo qiimeeyo maadooyin ku jira daawadaasina ay yihiin maadooyin aan beerihii ama coyaanka ama dalaga aan waxba ka tarayn marka meesha marka waxa kulmaaya marka in ninkii beeralayga ahaa uu helo daawo ku habboon dalagiisi daawo ku habboon cudurkii hayay daawo ka jawaabaya dhibaatadii haystay ninka beeralayga ah in la keenaa meesha ka baxaysa marka waxa dhigi karaa daawada dalka la keeno qiimaha way hoos oo dhigi karaa waan la qaadi karaa laakiin waxa muhiimadda waxay tahay daawo tayo leh ma la keenaa wadanka taas waa mid la rabo in laga hadlo ama u baahan in laga jawaabo aad iyo aad dadka daawada isticmaala ama beeralayda u badan ee daawada isticmaala ma isticmaalaan markii daawada isticmaalayaan precautionski ama waxyaabo protection ka hayo loogu talagalay in la isticmaalo marka daawada la adeegsanayo oo la buufinayo ama la isku darayo ma isticmaalaan bataatan ma jirto wax ka hortag ah ama protection clothes ah ama protection equipment isticmaalaan dadka beeralayda sababtaasna waxay tahay dadka anaga beeraha wadanka ka shaqeeyo waa dad illiteracy ah ama aan fahmi karin daawada dhibta ay u keenayso aan fahmi karin daawada caqabada chronic ah ay markii in muddo badan isticmaalaan ka dhalan karto sidoo kale soo duubo problemka ah inay daawadii ay ka xiran waayaan wax protection ah waxa keenay waxay tahay cilmi la'aan haysta beeralayda dalkeena waxa qaba jirta aadiya waxaa jirta qaabab loo isticmaalo daawada markii la isku daraayo oo ah biyaha iyo inay isu dhigmaan oo biyaha in intaasoo liter baa daawada intaasoo mililiter ama intaasoo gram loo isticmaala markii garaar tahay iyo markii dareelo taaba marka qaabka isku darka ay isticmaalaan ma saxdiya maside waa intii rabaa la isaga darsadaa su'aashaasi waxay u sagaysaa habka loo isticmaalo guud ahaan daawooyinka ama sumaha beeraha loo isticmaalo hadiya beeralayda caqabadaha ugu fara badan daawadii isticmaalkeedii iyo inay wax u faa'iideyso iyo inay wax u tarto waxa ka horeeya horta in la baro daawadan si loo isticmaalo lahaa macal asaf nasiib darro beeralayda dalkeena cilmigii ma gaarin in qofkii la baro daawadan si la isugu daro waxay kamid tahay caqabada koobaad ee qabsanaysa qof beeralayga markii daawo ka sax ku qoran ama leafletkeeda ama level daawada waxa ku qoran si loo isticmaalo daawadan hadiya inta liter biyaha lagu shubi karo xaddiga garaamka daawada dibota iyo haddii dareer tahay marka haddii qofkii beeralayga oo jaahil ah oo wixii uusan aqoonin waxa imaanaysa daawada si warban oo isticmaalo hadhowna ama ay ka badato ama ay ka yaraato meeshan waxa ka baxaya natiijada uu sugayo beeralayga oo inay daawada in wax u tarto asigin waxa laga yaabaa in dib ka soo gaaro oo asig naftiisa dib u keeno deegaanka dib u keeno waxaas oo dhan waxay hoos tagaysaa category-ga ah cilmiga beeralaydeena oo hoose oo la rabo in cilmiga la gaarsiiyo cilmiga beeraha la fadiyo daawooyinkii la baro iyo qaybo kala duwan beeraha in mid kala gelahay kamid ah marka waxaas oo dhan iyo in daawooyinkii iyo isticmaalkoodii iyo qaabkoodii wixii la baro waa ka jaahil ma yaqaanaan beeralaydeena waa dib jiro